Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa tubta wararka. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbi doonana waxaa ka mid noqonaya maanta waxaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku wajahan la taliyaha amniga qaranka madaxweynihii hore ee dalka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. war ayaan daawadayaal idinkageena Fahad Yaasiin halkaasi waxa uu ka dejiyay ciidan xoogan, haddaba ciidamadaasi amnigiisa ayay sugayaan. sidoo kale halkaasi waxa uu ka dejiyay ergadii dooran lahayd. war ayaan daawadayaal idinkageena maxay tani ka dhigan tahay? Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo wasiirkiisa amniga Cabdilaahi Maxamed Nuur waxay ku dadaalayaan sidii loo hakin lahaa socdaalka uu Fahad ku tagayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. kursiga hoob 86 ee damaca uu kaga jiro Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa doorashadiisu ay qabsoomaysaa Berito Axada. wararkii ugu dambeeyay ayaan daawadayaal idinkageena madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo foodo hor leh ayuu u fara laabtay. warar kala duwan ayaana ka soo baxaya halkan ayaana daawadayaal idinkugu shaacin doona. qoys qaadasho siyaasaddu muufa maaha. Farmaajo saaxiibadiisii ee 5 sano ee la soo dhaafay la soo halgamaya ayuu banaanka ku tuuray. haddaba abaalaabahan ku abaaldhacay dadkii isaga soo dhisayay ayaan daawadayaal halkan idinkugu faaqidi doona. qodobadaas ayaan isla falaqayn doonaa. soo dhawaada daawadayaal, halkan waa tubta wararka. mar kale aan ku xasuusiyay channelkeena subscribe saratood furata gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada loo gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, ayaa maanta ku wajahan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoo ka degaya garoonka Ugaas Khaliif ee magaaladaasi. Fahad Yaasiin ayaa damac kaga jira kursiga hoob 86 ee 4 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo iminka dalka uga maqan xaalad caafimaad. Fahad oo soo noqday agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, iminkana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, ayaa waxa uu doonayaa in uu xasaanad helo. xasaanadaas oo uu kaga dhuunto kiiska cadaaladda loo raadinayo ee Ikraan Tahliil Faarax. Fahad shalayto waxa uu magaalada Beledweyne ka dejiyay ciidan xoogan. haddaba tiro kale oo ciidamo ah ayuu hore madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uga dejiyay magaaladaasi. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah eedeysane loo haysto dilka gabar nabad sugidda ka tirsaneyd ayaa shalay ku wajahnaa magaalada Beledweyne isagoo iska sii hormariyay ciidamo fara badan, balse socdaalkiisii shalayto ayaa baaqday. maanta ayaana la filayaa in uu halkaasi u duulo. Fahad ayaa Beledweyne ugu socda in uu soo boobo kursiga tirsigiisu yahay hoob 86, kaas oo Berito Axada ee doorashadiisu ka dhaceyso meel gaar ah oo aan ahayn howlkii loogu talagalay doorashada. wuxuu iska hormariyay ciidamo wata hubka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo aad u tiro badan, waana kuwa ku biiraya ciidamadii hore qaabka sharci darada ah uu ku geeyay Beledweyne. shalay ayuu sidoo kale diyaarad ku geeyay Beledweyne ergadii u iibsaneyd ee xulan lahayd isaga, waxaana la dejiyay meel aan ka fogeyn xerada ciidamada AMISOM ee ku sugan magaaladaas. kursiga uu Fahad u ordayo waxaa hore ugu fadhiyay Faarax Sheekh Cabdiqaadir, waxaana tartanka kursigan loo diiday musharaxiinta beesha iskale kursigan, taas oo qayb ka ah boobka ee Villa Soomaaliya ku hayso doorashada aqalka hoose. si kastaba ha ahaatee, eedeysane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya u arka dalad uu kaga dhooman karo cadaaladda, maadaama 5 sano ee la soo dhaafay uu geystay gabood fallaad u fara badan, kuwaas oo aan weli laga daboobin. markaana daawadayaal, haddaynu eegno madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu muuqdaa mid foodo u fara laabanaya. madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wada qorshe uu doonayo in uu ku abuuro qalalaaso siyaasadeed oo hor leh kadib markii uu ku fashilmay in uu hor istaago doorashada baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taasoo uu garwadan ka yahay Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. xogo muhiim ah oo tubta wararka ka heshay xafiiska Farmaajo ayaa sheegaya in kooxda waqtigu ka dhamaaday ay doonayso
in ay isbeddel ku sameeyaan awood qaybsiga siyaasadeed ee ku aadan kuraasta waaweyn ee heer federaal, taas oo tan iyo dib u yabyabkii dowladnimada ku socotay jahaalo laisla ogol yahay. Farmaajo wuxuu doonayaa in uu dadaalkiisa ugu badan geliyo in kursiga guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu saaro shakhsi magaciisa lagu sheegay Maxamed Daahir oo ka soo jeeda beesha Hawiye, gaar ahaan Xawaale, kaas oo hadda ka mid ah musharaxiinta kuraasta u raadsaday beledweyne. Maxamed Daahir wuxuu hadda u sharaxan yahay kursiga tirsigiisu yahay Hoob 63 oo baarlamaankii 10aad uu ku fadhiyay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Cabdilaahi Goodax Barre, kaas oo sanadkii tagay si weyn kaga soo horjeeday Farmaajo iyo kooxdiisa, inkastoo 3 sano iyo ka badan uu kabasida u ahaa. Qorshahan waxaa sidoo kale gadaal ka riixaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ay isku hooyo yihiin Maxamed Daahir. Laftagareen waxaa loo ballan qaaday in ra'iisul wasaare la siin doono ama qof uu isaga keeno loo magacaabi doono. Farmaajo wuxuu hore madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ula wadaagay in ay kala qaataan xilka ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka sida ay u kala horeeyaan. Ha yeeshee waxaa muuqata in uu markan muhiimad gaar ah siinayo sidii uu u tijaabin lahaa isbeddel guud oo ka dhaca 3 kursi ee ugu sareeya dalka. Dastuurka iyo xeerarka dalka u yaala meelna kagama qorna in Hawiye iyo Daarood kala qaataan xilalka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare, isla markaasna ay raxweyn qaadato xilka afhayeenka baarlamaanka. Ha yeeshee waa dhaqan siyaasadeed dhowran oo lagu dhaqmayay 22kii sano ee lasoo dhaafay. Qorshahan uma muuqdo mid hirgeli kara, riyo maalmeed ayayna ku tilmaamayaan dadka siyaasadda u dhunduleela. Ha yeeshee waxaa la fahamsan yahay in Farmaajo leeyahay dhaqan siyaasadeed xasarad abuur iyo xiisad kicin ku suntan oo wax waliba ka suurtoobaan. Ugu dambeynna daawadayaal, haddaynu eegno qoys qaadasho siyaasaddu muufa maaha. Dadkii saaxiibada u ahaa Farmaajo ayuu bannaanka ku tuuray. Tani waxay ka marqaati kacaysaa in siyaasadda muufaysigu keliya maalmo kumood iyo macaasharaadis muddo gaaban ay tahay, halka mabda iyo mowqifka adag ee aan gebi dhaclaynta iyo hadba geed fariisiga lahayn ay si mug leh u miro dhalaan. Inkastoo hannaanka doorashooyinku sanadkan ku bilowday weli ku socdo kuna dhammaan doonaan boob iyo biliqo ay majaraha u hayaan madaxweynayaasha maamulada madaxtooyada Soomaaliya, guddiyada doorashooyinka iyo siyaasiyiin gaar ah, haddana waxaa laga bartay cashar mug weyn iyo miisaan culus leh, kaas oo matalayaasha siyaasadda macno gaar ah u xambaarsan. Cashir siyaasadeedkan waxaa intiisa badan lagu bixiyay Dhuusamareeb, xarunta maamulka Galmudug, halkaas oo ay ku asteysnaayeen 26 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, halka Garowe iyo Kismaayo ay kaalmo isku mid ah ka galeen. Magaalooyinkan waxa ay darka matalaadda baarlamaan ka fogeeyeen baratan iyo bulsho wax la qaybsina u diideen shakhsiyaadka 5 sano ee lasoo dhaafay wax kasta u sameeyay, qaab kastana ugu eedaabay kooxda Farmaajo si ay kuraas baarlamaan uga helaan. Ha yeeshee ugu dambeyn daadka la raacsiiyay. Sidoo kale waxaa kuraas ka soo qaatay shakhsiyaadka 5 sano ee naweedaaratay lahaa mabda cad iyo mowqif sugan, mucaarad toganna ku ahaa Farmaajo, Fahad iyo qaar ka mid ah madaxda maamulada, taas oo wejigabax ku noqotay kuwii muddo kabaqaadka ahaa ee Fahad iyo Farmaajo u adeegsadeen lugooyada deegaanadooda. Maalin uun ka hor waxaa Dhuusamareeb lagu doortay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ahaa xildhibaanka ugu mayalka adkaa xubnihii baarlamaankii 10aad ee Farmaajo ka soo horjeeday, halka kursiga Mahad ku soo baxay tartankiisa loo diiday Cali Yare Cali oo muddo kabaqaad u ahaa Farmaajo. 3 maalin ka hor waxaa isla magaaladan lagu doortay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isna ahaa shakhsiga ugu mayalka adkaa guud ahaan mucaaradka 5 sano ee lasoo dhaafay, waxaana kursiga uu soo qaatay tartankiisa laga hor istaagay shakhsiyaad Fahad iyo Farmaajo ku daaban. 5 maalin ka hor waxaa Dhuusamareeb ka soo baxay Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo qayb lixaad leh ka qaatay halgankii badbaado qaran ee ka dhanka ah muddo kordhintii Abriil 2021 ee sharci darrada ahayd, halka uu hore u soo baxay Saadaq Cumar Xasan Saadaq John oo qayb ka ahaa dagaalo ka dhan ah Farmaajo isla bishaas.
senator cabdi dhuxulow dhegdheer iyo xildhibaan mustafa cali dhuxulow oo dhankooda ka mid ahaa mucaaradka aan gamban ayaa kuraas ka soo helay dhuusamareeb halka villa Soomaaliya ku fashilantay dadaalo ay ku doonaysay in ay kuraastaas ku saarto shakhsiyaad lagu maalgeliyay lacag ka timid dalka Qatar. Kismaayo iyo Garowe ilaa hadda waa ka caagan yihiin soo saaridda shakhsi farmaajo taabacsan, waxaana la filayaa in magaalooyinkaasi dib u soo celiyaan inta badan xubnihii Fahad iyo Farmaajo ka aragtida duwanaa 5 sano ee la soo dhaafay, xilli ay xusid mudan tahay in xildhibaan Fartaag iyo Xasan Firimbe hore u soo baxeen. Jowhar dhankeeda wacdaro la yaab leh ayay ka samaysay doorashadii aqalka sare, waxayna daadka raacsiisay kabaqaadkii maalin raadiska siyaasadda ugu jiray, halka ay soo saartay xildhibaano uu ugu horeeyo Xaaji Muuse Suudi Yelxo. sidoo kale waxaa kuraas waayay shakhsiyaad ay Dalxa, Beyle, Muude, Cabdi Shire iyo kuwa kale ku jiraan, halka ay Ibi, Zakariye, Jeeso, Ubax Taaliil iyo kuwa lamid ah la filayo in ay sanadkan ku adkaato dib u soo laabasho. Talaabooyinkaasi waxay ka marqaati kacayaan in siyaasadda muufaysigu kaliya maalmo kumood iyo macaash raadis muddo gaaban ay tahay, halka mabda iyo mowqif adag ee aan gebi dhaclaynta iyo hadbageed fariisiga lahayn ay si mugle u miro dhalaan. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijyaadka channelka tubta wararka aan ku leenahay YouTube-ka, muuqaalka like inoo saar, subscribe inoo saar channelka furaga malaalka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkaan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.